dagaalka Iran iyo gumaystaha Israa'iil oo galay maalinkii afraad ayaa u muuqda mid saameyntiisa laga dareemayo dhammaan caalamka. Dagaalkan uu gumaystuhu u galay soo naafeeyay qorshaha Iran ee ku doonaysay inay ku hesho hub waxgumaada ee nukleerka ayaa noqon mid lagu guuleystay. Haddaba su'aasha 100 milyan ku kacaysa waa Iran xagee ayay ku bacrimisaa hubkan ka dhigi kara quwad ka mid ah quwadaha adduunka, sidoo kale gumaystaha ka dhigi kara mid cibrigiisa bariga dhexe soo gaabtay. Barnaamijkan waxaan kugu sharaxayaa goobaha ay ku sameysay Iran hubkaas ee fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii kalena share iyo like isku dar si uu u gaaro asxaab horle. Meelaha la tuhunsan yahay qaarkoodna la cadeeyay inay Iran ku diyaarinayso hubkeeda nukleerka inta la og yahay waa 6 xarumood. Natanz oo 220 kiiloomitir koonfur bari ka xigta caasimadda Tehran, Fordow oo 100 kiiloomitir koonfur galbeed ka xigta Tehran, agagaarka Qom, Arak, Khandab oo 240 kiiloomitir galbeed ka xigta Tehran, Isfahan Nuclear Technology Center oo qiyaastii 410 kiiloomitir koonfur ka xigta Tehran, Barchin oo 20 kiiloomitir koonfur bari ka xigta Tehran, Bushehr Power Plant oo 1200 kiiloomitir koonfur ka xigta Tehran. Xarunta koobaad ee ugu muhiimsan waa Natanz Nuclear Facility, waxay ku taalaa 220 kiiloomitir koonfur bari magaalada caasimadda ee Tehran. Xaruntani waa xarunta ugu weyn ee lagu kobciyo enrich ama uraniumta. Waxaa ku yaala kumanaan centrifuges qalabka wareega ee uraniumka u kala saara, gaar ahaan kuwa casriga ah ee IR G1 IR G2M iyo IR G6. waxay hormuud u tahay dadaalka Iran ay ku dhisayso awood nukleer ah, iyadoo heerka kobcinta uraniumka la gaarsiiyay ilaa 60%, taasoo si dhow ugu dhow heerkii loo baahnaa si loo sameeyo hubka nukleerka ah 90%. weerarkii Israa'iil ee 13 Juun 2025 wuxuu si weyn u beegsaday xarunta Natanz. waxaa la burburiyay korontadii xarunta iyo dhismayaal sare, inkastoo wararka qaar sheegayaan in qolka weyn ee dhulka hoostiisa ku yaala ee lagu kaydiyo centrifugeska uu badbaaday. Natanz waa lafdhabarta barnaamijka nukleerka ee Iran. xarunta labaad waa Fordow Fuel Enrichment Plant ama FFEB. xaruntani waxay ku taalaa buuraha Al-Bors agtooda 100 kiiloomitir koonfur galbeed uga beegan magaalada caasimadda ee Tehran, meel u dhow magaalada Qom. waa xarun qarsoodi ah oo dhulka hoostiisa ku taala oo loogu talagalay kobcinta uraniumka. waxaa la rumaysan yahay inay ka shaqeeyaan 3000 oo centrifuges, waxayna aad ugu adkaysi badan tahay duqeymaha cirka. weerarka Israa'iil wuxuu sababay burburka xarumo koronto iyo isgaarsiineed, balse qaybo badan oo kamid ah xaruntan dhulka hoostiisa ah wax dhib lama gaarsiinin. xarunta saddexaad waa Arak Heavy Water Reactor IR40. waxay ku taalaa magaalada Khandab oo u dhow Arak, galbeedka Iran, qiyaastii 240 kiiloomitir galbeed ka xigta caasimadda Tehran. xaruntani waa mid loogu talagalay in lagu soo saaro plutonium. waxaa kale oo lagu sameeyaa hub nukleer. reactorkana wuxuu u adeegsadaa heavy water si loo yareeyo neutronka baxaya, taasoo ka dhigaysa mid si gaar ah ugu habboon tijaabada hubka. inkasta oo heshiiskii JCPOA ee 2015 uu xadiday shaqada reactorkan, Iran ayaa dib u bilowday horumarintan, waxaana laga yaabaa in howlgalka reactorkani uu dhaco 2026. ilaa hadda lama soo sheegin burbur muuqda oo gaaray xaruntan weeraradii ugu dambeeyay. Isfahan Nuclear Technology, magaalada Isfahan 410 kiiloomitir ayay bari ka xigtaa caasimadda Tehran. howlaha xaruntani waa xarunta lagu sameeyo uranium conversion, waana wax ka bedelida uraniumka yellow cake ilaa uranium hexafluoride UF6 oo loo diro centrifugeska. sidoo kale waxaa ka socda cilmi baaris sameynta tuubooyinka nukleerka iyo tababarka khubarada. ma jiro war rasmi ah oo sheegaya in xaruntan si toos ah loo beegsaday, laakiin waxaa loo arkaa meel muhiim u ah geedi socodka tiknoolajiyadda nukleerka ee Iran, waxaana suurtagal ah inay noqoto bartilmaameed mustaqbalka dhow. Barchin Military Complex qiyaastii waxay 20 kiiloomitir koonfur bari ka xigtaa Tehran. howlaheeduna waa xarun military oo la tuhunsan yahay inay ka dhacaan tijaabooyin qarsoodi ah oo la xiriira hubka nukleerka, gaar ahaan tijaabada qaraxyada hore explosive testing iyo injineeriyadda gantaalada. waxaa ka dhacay weeraro qaraxyo ah sanadkii 2024, duqeymo la tuhunsanaa inay Israa'iil ka dambeysay, balse warar rasmi ah oo hadda la hayo ma muujinayaan in weerar cusub uu gaaray bishan 13-keedii. Bushehr Nuclear Power Plant, meeshani waxay ku taalaa magaalada Bushehr, xeebta badda Faris, 1200 kiiloomitir koonfur bari ka xigta Tehran. xaruntani waa warshad koronto oo nukleer ah oo ay dhistay dalka Ruushka. ma qabato howlo la xiriira hubka nukleerka, waxaana loo arkaa meel u adeegta dadka rayidka. lama weerarin, lama filayo in si toos ah loo beegsado, sababtoo ah caalami ahaan waa xarun rayid. Mareykanka oo muddoba isha ku hayay xarumahan ayaa gumaystaha ka caawiyay weerarka 13 Juun, iyadoo Iran weli awood u leedahay inay hesho hubka waxgumaada. Iran waxay leedahay shabakad isku dhafan oo nukleer ah: enrichment Natanz, Fordow Plutonium Reactor, Arak farsamaynta uraniumka, Isfahan iyo xarunta tijaabo oo military Barchin. dadaalada Israa'iil waxay burburiyeen korontadii iyo dhismayaashii aan kor ku soo xusnay, balse lafagorka dhulka hoostiisa ka socda ee Fordow iyo Holis Natanz weli waa ay sii jiraan, taasoo keeni karta inay Iran weli awoodo samaysashada hubka nukleerka. dagaalku waxa uu saameeyay meelo muhiim ah, iyadoo Iran ay weli leedahay awood ay ku sii wado barnaamijkeeda nukleerka.